السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة هودا مال والبو جوكتان iyo si walba di daawaneysaan aweysin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena bandhiga oo waxiisa gaar ah imbaarsanay afar qodob ayaan isdul istaagayaa qodobka koowaad wuxuu noqonayaa casho sharaf ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo gobolka Banaadir ayuu Axmed Madoobe yiri ra'iisul wasaare cunno mooyee hadal kuma sheegi karo meel Umar Finish uu fadhiyo Umar Finish oo ka carooday iyo ra'iisul wasaare oo garta galay 10 daqiiqo muran ahna ragii isku yimid maxaa lagu qanciyay muxuu Axmed Madoobe tabanay maxaa Umar Finish looga shakiyay muxuu ra'iisul wasaaraha u sheegay qodobkeena koowaad ay noqon doonaa qodobka labaad wuxuu noqon doonaa shalay beelaha abgaali gaal jecel ayaa saban isla dhacay wiilal qaaliya dhintay dagaalku laba qabiilo isdishay ama ciidan macawiisley iyo ciidanka booliiska Hirshabelle isdilay wuu ka weeyay sir baa ku duugan xaalka halku u jeedo ayaan wax badan ka ogahay waana sababta 24 saac ugu gaabsaday isagana caawa diirka ayaan kaaga qaadayaa waana qodobkeena labaad qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa isla Axmed Madoobe wasiir magacaabay laakiin raggii hawiye kuma jiraan wasiiradii ilaa laga reebo laba qabiil mooyee hawiye wiska waayay shaashada Jubbaland ni maqlaysan hawiye shaashada Jubbaland kuma jirtaan laba beelood oo kala qaatay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka dekedaha kaliya ayaan haynaa way qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa Cabdishire qabiil jecel adigu ciyaar jecel oo taqaana oo fanki isaga fariista abshir iyana wuxuu noqon doontaa maxaa sababay xog aan kaaga hay arintaas ayaa dabcan barnaamijka uga boqon doontaa waayahay halka iyo jawhar ayaan ku bilaabaynaa qodobka beelihii abgaal iyo gaal jecel ayaan rabaa caawa inaan wax umada aysan wali ka dhihin anigu ka dhaho laakiin markaan wax dhahay waxbaan soo xeeriyay waxbaan soo dhageeyay war nin weyn baa halkan la soo fariisanaya haddaad maqashay wiilal warsangiliya iyo wiilal mataqaana gaal jecel halkaas isku dilay ama gaal jecel abgaal halkaas isku dilay arinku sidaa maahan haddaad maqashay ciidan macawiisleeya iyo ciidan wax la yiraahdo mataqaana Blaiska Hirshabelle ayaa halkaas isku laayay arinku sidaa maahan laakiin waa u egyahay horta dhacdadan haddaan soo koobo sida ugu dhaqsiyaha badan u soo koobo dadku wax dheer ma jeclee xaaladda horta waxay ku bilaabatay dowladka Jowhar waxaa jira rag macawiisley ah oo abgaal iyo gaal jecel ah oo laakiin aan kala amar qaadan gaal jecelna gooni macawiistooda wato abgaalna gooni macawiistooda shaalkooda u wataan kuwaasoo shabaabka kula dirira banaanka magaalada ama duleedka magaalada waxaa soo dhacday marka warbixin ah in ciidankii macawiisleyda mar walba ay soo booqdaan magaalada Jowhar ama qaad ha u soo doontaan ama cunaha u soo doontaane cabsi fara badan ayaa la soo gudboonaatay ciidankii mataqaana haddaan si u dhaana ciidankii adigu beesha abgaali Jowhar joog ileen booliis ma yeelaysiin anaa qaan luqadaas ma rabtaan abgaalka marka waxay dhaheen abgaal kale banaanka ka yimid oo macawiis wata iyo gaal jecel banaanka ka yimid oo macawiis wata ileen gaal jecelkii abgaalka kale banaanka magaalada iyo gudaha waa degaan anaga kala masaari karno waan lagu soo dhaxdhuuman karaa waa lagu soo gamba karaa warniman yahow aan bal wax ka dhahno oo wareegta soo saarno marka Blaiska Jowhar waxay dhaheen cid aanan ka tirsanayn booliska Hirshabelle Jowhar qori kuma qaadan karto ciidankii macawiisley ee gaal jecelna waxay ku qasban yihiin anigu gartooda siyaar ragay inay Jowhar qori ku imaan sababtoo yaa ilaalinaya marka Cabdiqaadir Boos Camar iskaga soo baxo yaa ilaalinaya igarkii macawiisleyda ee watay gaal jecel waa diiday awaamirta booliska Hirshabelle waa diiday sidiisaba Hirshabelle ciidamadii Ali Guudlaawe ku heybta ahaa waa baxeen waa soo qabteen saldhigga booliska geeyeen saldhigga booliska wada hadallo muddo badan socday ama dadaalo lagu doonayay in lagu soo daayo igarka gaal jecelna way guul dareysteen gaal jecel waa tashadeen leen qabiil hubeysan oo deegaanka iyo gobolka intaba degan waay war abgaalo wiilkeena ma haysan kartaan wixii maamul goboleed oo magaca guud ee beesha caalamka wax looga cuno laakiin qabiiladu waa siqaanaan abgaalo wiilkeena ma haysan kartaan waa la soo deey waay waa run in la soo deey waay waa sax qabiilka ka dhalata run been looma sheego macawiisley gaal jecel hogaaminayo hubkoodii soo qaateen saldhigii imaadeen waa rasaaseeyeen adigu waa lees dilay wiilal qaali oo madaxtooyada ku jira dabcan ka tirsanaa Ali Guudlaawe u dhawaana waa ku geeriyo Allah u naxariisto dhanka kale macawiisleyna wiilal baa ka dhintay labada wiilba waa dabcan dad wada dhashay way markii aan ku dheeraane dagaalkaas markuu dhacay anigu wax weyn uma haysan
قال جعلي أبقى إزدري لكن دقيقة كدب أحمد فال وانين محمد موسى وعبودن مثلا وانا قدوميها قبل كشبيلها دحي baabuur kiisa oo dhankaas deegaanka qoor dheer la yiraahdo oo dhaxeeya mataqaana raagaceele iyo mataqaana meesha la yiraahdo Jowhar ayaa miina loo dhigay waa saacad gudaheed taliyihii uu jeclaa ayaa geeriyooday isla saacad gudaheed wiilashii badbaado qaran ee keysanay Miranaayo joogi iyo Miranaayo beach meesha la yiraahdo ilaa Kaaraan ilaa Sheekh Ali Cabdulle oo mataqaana waxa soo wactamay niman Maxamed Muuse oo raagaceele jooga oo dheen shabaab oday naga soo afduubto naga dilay dagaal u soconay man caawinaysan ciidamadii lixaadka lahaa ilaaha weyne oo tirada badnaa waa qaar baa soo baxay raggan Maxamed Muuse caawinayeen iyana dagaal iyo qarxiyad jidka ku qabsaday wiilal baa wadanta iyaga inkastoo ay mataqaana guuleysteen intaasoo dhacda oo silsilada isdaba yaalo dadka been looma sheego dadka wax lagama qariye waa wax la soo duuduubay silsilada mataqaana fila Soomaaliya ka socdo waa maxay uga socdaan maxaa fila Soomaaliya oo intaanu carqalada ah ku kalifi kara waxa ku kalifi kara oo looga gol leeyahay farmaajo markii uu arkay ciidanka aniga luuqada ku hadal luuqad la qariimaha luuqad sax waaye ciidanka mudulood oo awooddaas leh oo awal dhig jiray nimanka wax ma hayaan boqol tiknika markuu arkay wuxuu odaga ma inuu ka jiifto oo haysta boqol tiknika oo abgaal leeyahay markuu arkay ma inuu jiifto kula tahay xanta ugu badan xasan sheekh waa hubey abgaal sheekh shariif abgaal waa hubey intaanu tiknika inta laga keen ma kula tahay in cadowgaada markii uu hubkaas arkay inuu bariis iyo chicken cunay ma kula tahay maya waxa lagu qiilayay in ciidamadaas sidii ama mid la dilo kuwa la kala dhantaalo kuwa la luush lagu dhiibo kuwa laga nixiyo kuwa la shirqoolo nooc kasto aag marka waxa lagu furay ayadoo hadana dagaalka cuqdadaas ay jirto hadana Cali Guudlaaw wuxuu diiday extension laba ujeedo kaleyn marka in Cali Guudlaaw problem lagu furo si uu dabacsanaan u muujiyo shirka maamul goboleedyada dhinac kasta looga furo qabiiladii Hirshabelle way isdilayaan gaal jecel kaliya ma boqol qabiil isku dilos Hirshabelle in mataqaan shabaab lagu furo gaal jecel iyo mataqaana abgaal la isku furo gudoomiye Luqmaan ee nin gaal jecel oo Fahad Yaasiin hoos ka wato awal ba asaga keensaday hoos arinta ka qabsado Cali Guudlaaw tashuushki ugu darnaay ayaa lagu furay ama shirku inuu ka baaqdo ama hadduu imaado nin dhagan nugul inuu noqdo wallahi billahi tallahi runtu way qaraartaa dacar way ka qaraartaa laakiin aniga runtina sheegalka u maada yaan marka lagu gambani gaal jecel abgaal isdagaal ma ahan waa dagaal siyaasadeed gaal jecel iyo abgaal waa dad walaalo ah oo isla dhashay waligood rag iska dili jireen xoolo iska dhici jireen laakiin arinka maangaabku saas la yaamaane qof kasto aqal halkan ku jiro dagaalkan waa dagaal mind game ah dagaal maskaxeed waaye shabaab badana hadda lagu ku soo qulqulaa lagu leeyahay shabeelaha dhexe oo shabeelaha hoos ka imaaday intee u socdaan saacadan maxaa keenay abti Cali Guudlaaw tashuush iyo dagaal maskaxeed iyo wareerisa ku furmay wax ninkii Ahmed Macalin Fiqi oo wasiirka amniga galmudugana shabaab badan oo is aruursanayo dhul Samareeb ka sheegayo oo aan wali hor loo arag isagana qoor wuxuu maraa wadada Cali Guudlaaw nimankan hadaadan ciidan lahayn oo awood lahayn tashuush kale kugu furayaan marka dagaalka yaan loo maleynin dagaal gaal jecel abgaale waa dagaal siyaasadeedsan oo villa Soomaaliya ka socda shabaab in lagu soo daay halkaan Cali Guudlaaw ma ahane ciidamadii in qaraxay loo dhigo miina lagu duugo jidka hoobiye lagu garaaco ciidamadaas cadowga uu arkay ciidamadaas ma aha kuwa uu bariis iyo hilib cunay farmaajo oo ka aamusay ha u maleynin intaas iga sheer garay ciidamada qaranka ee badbaado qaran nimankaas tulkay u badanee dabinka la rabo tol hadaan ay sheer garay intaas ugu gudbay hadaan lagu sirin gaal jecel waayahay aan ka gudbo halkaas waa ku dheeraaday Umar Finish oo maanta cashadii Ahmed Madow uu yiri meel Umar Finish joogo waxaan doono kuma sheegi kare ra'iisul wasaare shirka banaanka naga geey aan ku soo sheekaysano war maxaa dhacay war waataan aniga dhaxdhaxaan noqday war waataan amniga la wareegay war waat maxaa qaldan wax kale ma qaldan anu ninka meel joogo kama hadlayo gor hatta shirka inuu imaanin ayaan ka jeclaan lahaa muxuu Ahmed Madow tabanaya markii Ahmed Madow wuxuu tabanaya garbu u leeyahay wax kale ma Ahmed Madow wuxuu yiri extension ki la wada diiday ra'iisul wasaare diiday
qorqor iyo cali guud laba diideen ninaan weli extensionka diidin oo yes iyo may iyo haal laga haynin sidee ani meel ul fariisan karaa soo lagama yaa waxaan ku sheekaysanay inuu qaadaba ninkan warniyow Roble yiri soo dhawow garbaad leedahay laakiin talo waa isbedeshay ana habeen hore maxaa idin Umar Finish wuxuu campaign u sameeynayaa ra'iisul wasaare Roble xilku ka rabo ani garan maayo malaha wasiirka amniga ayuu qaadan doonaa markuu Roble madaxweyne noqdo waxba loo balan qaad intii la eegin ma garanaaye adigu qarashka gobolka banaadir si hore idinku sheeg ku laaban maaye Roble murashax oo hadda aan shacsaneen ayaa la rabaa Umar Finish wuxuu ninka liira Roble wuxuu dhahay ninka liira Axmed Madow walaalo soo dhawow Umarkii hore ma ahan aniguna ninkii hore ma ihi gogoshii hore ma ahan hal baa la rabaa nin dabacsan oo ka waxa kale xasuus mudan ciidamadii Axmed Madow oo 100 askari oo hubeysan ah wax sawir lagama qaadin sabab wax olaad in la muujiyo lama rabo maadaama odagii extension ka margaday sida cunta amal ku margado tufay meesha iska joog inaana olaad jirin ayaa ninkii saacad la tusay inuu nabadoon yaa la tusay inuu nin dhaxdhaxaad yaa la tusay isagana nin karaamo badan oo madaxdii soo dhaweynayso waay kaliya shirka waxa ka maqan cali guudlaaw saan idin sheegay tashuush lagu furay odagii iyo nin la yiraa deni oo tacsi u jooga Dubai oo ka yimid hadda wuxuu joogaa Garowe wuxuuna ka qayb qaadanayaa tacsida madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland oo maanta geeriyood Allah u naxariisto halkaas waa qodobka labaad shirkana sabtida ayuu furmayaa waa la isku imaanayaa sida xogta rasmiga ku yeelanaya madaxweyne Deni Berrito ayuu imaanayaa meel ku qoro waxa soo haray wasiiradii Axmed Madoobe ee nimanka hawiye ee dega Jubbooyinka horta wax wasiira ay ka qaateen ma jirto cadkii qabiil hawiye la dhahana anigu hawiyaha u hadla maadaama aan ka dhashay haddaan xildhibaan noqonaay iyagu dabcan aan matalaayo ilaan ma jarteen ma matalaay dir ma matalaay qabiil kale ma matalaay raxwiin ma matalaay yaa matalaa adgaal ayaan xildhibaan u noqonaa muduloodan ka fadhiyaa hawiyaan ku abtirsadaa maxaa uga xishooda marka xaqa baa leeyahay wasiiradii hawiye ay ku lahaayeen xaqa ugu lahaayeen Jubbaland waa ku daayeen ogaada wasiirka dekedaha iyo wasiirka ganacsiga oo kala sheeqaal iyo gaal jecel intaas ka badan ee sheeqaal iyo gaal jecel lahaayeen anoon hawiye kale u hadin intaas ka badan ee lahaayeen laakiin waxaan rabaa inaan mid hawiye xasuusiyo caaw oo ay ilowsan yihiin hawiye waxaad arkay cad isagoo ka maqan yahay 24 saac ay qeylinayaan ama cad ha ka maqnaado ama xil ha ka maqnaado ama wiil ha ka maqnaado ama lacag ha ka maqnaato 24 hours haday waayaan haday helaan waa alxamdulillah haday waayaan waa rabbil caalamiin waa qabiil cajiib u sameeysan waa qabiil ba iyagoo sixran dhasha u maleeyay war fiiriya wasiirada Jubbaland hadda Axmed Madoobe Marayxaan iyo ogaadeen oo ka dharjiyay dhib ma laha waa qabiil meesha degaa laakiin anagu dhul weyn baa ku leenahay dad baa nooga maqan dad badan baa dega beeraan ku leenahay wax walba nooga yaal meesha ganacsi baa ku leenahay deegaan asala ku leenahay ana doo ma hadlay waa isla ka dhashay laakiin wiil ma u hadlaa meesha dega maybe inaysan wax isla degin xataa wax isla waa degaan laakiin anigu wax isla wax la siiyo halka uma soo gelinay hawiye habar gidir xawaadla dega habar gidir gaal jecel sheeqal ha ugu badnaadaan mursada dega qabiil walba dega gugundhabo dhana dega laakiin wuxoodu waa inay helaan taa uma socdo waa laga dareeyaa taas anaga waa soo dhacsan weynee isagana dabcan inaan 24 saac Cabdiqaadir Boos haduu ka hadlo ilaabayo og Axmed Madoobe waxaan rabaa hawiye caawa fariin baa idin sheegaa fadlan waxaad iga gaarsiisaa xildhibaankaaga wasiirkaaga agaasimahaada qof walbo siyaasad kugu matasho iga gaarsii waa fariin aan ilawnay muddo mataqaanaa muddo ah 8 sano ka badan ay ilawsanay waana wax nagu taagan mana xasuusnaa haddaan ku weydiin maxay tahay xil baa kaa hadda Soomaali xil baa kaaga maqan waa xilkee xil aad adigu xaq u leedahay ayaa hawiye maqan waa kee caar qofkii gabar iyo wiila oo sheega wallahi sharad baan siinayaa madaxweyne Soomaaliya ma kaas waa lagu tartamaa 10 jeer buu daarood qaadan karaa ka adigu ma lihid 10 baa qaadan kartaa daarood ma laha laakiin xil weyn oo hawiye leeyahay oo la meermeeriyay ayaa jira yaad garanaysaa hadaad garanayn aan ku sheego waa madaxweyne ku-xigeenka Koonfur Galbeed hawiye leh ku saxiixan warqadda madaxweynaha hadda jooga lafta gareenna ma rabo inuu ku siiyo Shariif Sakiin oo ka horeeyana ma rabo inuu ku siiyo madaxweynayaasheen oo markaas joogana ma raba inay keenaan marka maxaan ku leenahay marka waxaan rabaa marka maadaama aan ku leeyahay iga gaarsii
siyaasiyiinta hawiye oo masajada whatsappka ugu dira ama intaan u jara whatsapp ugu dir messenger ugu dir inaanan doqomo ahayn oo waxayna ognahay xasuusiya xilkaas baa naga maqanay ninkii noo keena qabiil kasta ha qaato oo habeerija ha qaato oo cali madaxweyne ha qaato oo cid walba ha qaato oo daguuro ha qaato laakiin waxaa ogaa inuu ku saxiixan yahay nin hawiye ah inuu qaadanayo weliba markii ugu dambeysay nin mudulada loo wadi laakiin raxaweyn qabiilaan jecelnahay oo isla soo dhaqanno waxay taagiin hawiye oo galmudug madaxweyne ka ah oo nimanka hirshabelle madaxweyne ka ah oo gobolka banaadir haysto oo meel walba fadhiyo inta duu madaxweyne waxay noqonayaan powerful Soomaali war powerful kuma madaxweyne ku xigeen xilkeena nasiya nimayo warnimada cadka aan naga haystaan raxaweyn nasiya ninka soo siyaasi intaas u geey way qodobka aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo xiisa leh ninkii Cabdi Shire ciyaar jecel u taqaanaa qabiil jecel ahaa fanki waa ka fadhiistay fanki caaw sida 90% leeso xaqiijiyo fanki waa ka fadhiistay horta anigoo yaaban oo madaxa haysta ayaa xalay waxaan daawada video uu soo dhigay saaxiibkay qaaliga ah walaalkay ayaan la xusin aan ka daawada hanolaato rag odayaala wallahi hawiyo mucjisada aad qabateen gabdhii wiilalow xaq oo direerow waxaad kali laadiin shaqadan qabto qof idin dhow waxaad laadiin qof idin dhow waa maasantihiin shaqada aan qabateen well done horta habeen baa dislike idin diray dislike waa ka soo baxdeen anaguna waa maasan inaan teknolojiyada saaxiibo ku nahay oo isku dhiig ku nahay walaalo ku nahay horta halkaas ka ogaada tiradiinana sheerta laga yaqaan laagti lofta laga yaqaan tiradiinana cadow waa bartay kow ninkii ayaan la xusiin u tagay odayaal buu wata fiiraya odayaal iyo ciyaalka xaafadda meesha la joogay waxay leeyihiin Cabdi Shire waxaa lagu sameeyay discrimination waa la faquuqay fanaan Soomaaliyeed waay fanaan wada baranay hadda daa ku dhakor live ku waxa ugu jira Twitter Facebook ma Twitter waay adaa indha lahayn sheekadaas aan weyn jiray odayga wuxuu gaaray intuu cala hawiyo idhaqa maya daaroodkiisa kala dhahay xalay mareexanku ka dhash inkastoo dadka qaar leeyahay sabuux fakaday waay hadda sabuuxaas fakaday waxay taagiin war ninkii fanaan qaran u ahaa jiray hadda ka hor midaa wax ka soo fakada mareexana wuxuu leeyahay hadda ka hor buu hees wuxuu soo qaaday kula hadda dhow wuxuu qaaday ninkan wuxuu soo qaaday Kenya iyo wuxuu soo qaaday Dubai kula taas laftirkeeda waxay taaba shaqada farmaajo waay anaga Kenya iyo Imaaraadka waay aan iraada Kenya iyo Imaaraadku uu hees soo qaado no Kenya Imaaraad qof sheegay waa farmaajo Ethiopia ha soo qaadano hadda Ethiopia ha soo qaado qadar ha soo qaado maxay dawladaha shisheey anaga nool kan saara waa sheekadaas ka diin hadda odayga marka wuxuu taagay fanku waa ka fadhiisto dad baa u tagay oo mareexan hadda waxay leeyihiin war soo laabo caawa gurigiisa waa la buuxa war soo laabo ma Cristiano Ronaldo fariistay war soo laabo meed ninkan selfister noo yahay hadda Cristiano Ronaldo ku yahay cid dhageysanaysa dambe dislike meel u taal hadduu soo laabto wiilasha guutada 22aad halkan ku jira ee suuq xoolaha jooga ee gurceel jooga ee dhuusamareeb jooga ee baladweyne jooga ee kaaraan jooga shir kala jooga Cabdiqaasim gurigiisa ku dhex jiro wallahi dislike ku sugayaan billahi tallaah hada soo laabatid odag waa ni jabsay laakiin tolkiisa anta hoosta ka galay leeyin soo laabo haniya jabin hawiyo kuma jabi karo hay soo laabto waa no dislike habeenku ha idin wacnaado gulasta